Dün Somali hükümetinin bizden bir yardım talebi oldu. Özellikle ağır olan hastaları Türkiye'ye götürüp Türkiye'de tedavi etmek yönünde bir talepleri oldu. shalay yaa xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay noo soo gudbisay dalab ah inaan ka geysano kaalin khaasatan dhaawacyada halista ah ama kuwa ugu culus in dibadda loo qaado. Hükümetimiz de dün hızlı bir şekilde buraya büyük bir askeri kargo uçağı gönderdi. Xukuumaddeenana waxay si degdeg ah u soo dirtay diyaarad ciidan. Uçakla birlikte büyük oranda tıbbi malzeme nakledildi. Diyaaraddu sidoo kale waxay keentay qalab caafimaad oo aad u badan. Ayrıca bu tür durumlarda ihtiyaç duyulan doktorlarımız buraya geldiler. Sidoo kale waxaa la socday dhakhaatiir. Bir de ulusal medikal kurtarma ekibinden büyük bir ekip şu anda burada. Waxaa kaloo la socday sidoo kale koox caafimaad oo ka socda Turkiga. Dün gece sabaha kadar da ülkemize götürülecek hastalarla ilgili çalışma yaptık. Xalay ilaa waaguu ka baryo waxaan ka shaqaynaynay ama aan ka wada shaqaynaynay sidii loo diyaarin lahaa dhaawacyada loo qaadayo Turkiga. Dadka meesha ku dhintay Soomaalida haddii laga rabo waxaa ku jirtay 2 qof oo Turkiya injineer ah oo jidka xamar iyo afgooy dhisay eegana Ilaahay u naxariisto eega naftooda waxay u socdeen inay caawinaan ummadda Soomaaliyeed iyo shaqooda waajibkoodii gudanayeen eegana Ilaahay u naxariisto sidoo kale waxaan rabaa dowladda Turkiga halkan ugu mahadceliyo saa u jeedaan diyaaraddaas weyn ay soo direen iyo dhaqaatiirta qaarna halkaan ay ku hari doontaa oo waxay caawi doonaan dadka waddanka lagu daaweynayo qaarna diyaaraddii la noqon doona hadduu Ilaahay yiraahdo dadka dhaawacay qaadi doonaan biidnillaahi kariim. Marka waxaan rabaa sidoo kale halkan inoogu faa'iideysto saxaafadda oo mar walba garab taagan ummadda Soomaaliyeed dacwooyinka u tabiyo waana mahadsan hadduu Ilaahay yiraahdo.